odaygan waxa uu haystaa furaha dunida ugu qiimaha badan cid ka qaadi karaysana haba yaraatee ma jirto furaha gacanta ugu jiraan waa furaha Kacbada Allahu akbar odaygan magaciisa waxa la yiraahdaa Saalix Shaybi waa saadinka iyo mas'uulka Kacbada ee 109aad asadaana oo macnaheedu yahay mas'uuliyadda Kacbadu waa aada soo jireen oo macnaheedu yahay ilaalinta ka warhaynta iyo daryeelida Kacbada barakaysan ee Allah subhanahu wa ta'ala adab waa su'aal odaygan Saalix Shaybi ku noqday mas'uulka Kacbada ama loo doortay qofkii ugu horeeyay saadin ama mas'uul ka noqday Kacbada waxa Qusay ibn Kilab oo ahaa awowgii afraad ee nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam kadibna ubadkiisii baa iska soo daba dhaxlay ilaa waqtigii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam furanay magaalada Makka uu saadin ama mas'uulka Kacbada Uthman ibn Talha markii nabigu Kacbada soo galay Uthman waxa uu furiyay ku wareejiyay Kacbada rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam dabadna nabigu waxa uu galay Kacbada waxa uu ku meeray biyaha samsamka waanu ku tukaday furihii baan u soo celiyay haddana Uthman ibn Talha inta kadib waxaanu ku yiri khuduha ya bani Talha khalidatan talidatan ila yawm alqiyamah la yanzi'uha minkum illa dhalim furaha Kacbada hooya reer dalxo waligiina sida uu haysta ilaa maalinka qiyaame cidda idinka qaadana ma aha mid dulmi badan ah mooyaane mid kale sidii baan reer bani Talha ku haystaan furihii ilaa maanta aad baad mahadsantiin salaam alaykum